maamulka gobolka Gado iyo kuwa degmooyinka ayaa saaka booqasho ku tagay buundada degmada Luuq oo ay ka muuqato burbur aad u baahsan oo aan helin dayactirtan iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Luuq mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Garlow oo baaq u diray dawladda dhexe ee Soomaaliya inay qayb weyn ka qaadato dhismaha buundadan inshallah socotaan hadda buundadii tiirarkii ku taagnayd oo dhan waa dhaxlisteen kuwa kuwii difaaca ahaana waa wada dhaqeen tusaalahaan hadda waad aragteen difaacaas wuu dhacay saad aragtaan hadda meeshaan waa way afka kala qaado buundada inay kala go'day halis u tahay wayna kala qaado afka inay qaybtan dhinaca u soo dhacda taasan dhinaca u dhacday halis u tahay dawladda Soomaaliya iyo shacabweynaha Soomaaliyeed waxaan cod dheer ugu baaqaynaa in buundada degmada Luuq si degdeg ah wax looga qabto ma aha hadda wuxuu u baahan tahay waa emergency issue ma aha waxa laga qabto waqtiga si jita waa wax u baahan hadda in wax laga qabto ilaa waxay jirtaa buundada Luuq 60 sano dawladda federaalka cod dheer waxaan ooga dalbanaynaa buundada Luuq way go'day ma aha wax la leeyahay waxa loo raadiyo hal la yimaado iyo waqti dheer wax si qaadan kara ma aha dawladda waxaan ka codsanaynaa sida wasaaradda howlaha guud si degdeg ah buundada Luuq in loo soo gaaro loo yimaado loo arka waa halbowlihii isku xiraayay gobolka Gado Ethiopia Kenya shacabka Soomaaliyeed oo dhan buundada isku xiraysay waa midaan waxa go'aya tiirarkii ay ku taagneed sida aad arkaysaan tiirarku waa dumitaan waqti ay dumitaan ma bariba mis waa bari damba si degdeg ah dawladda waxaan ooga codsanaynaa ilna xariis leh waxyaabaha la sugi kara kamid ma aha ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Gado ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Gado Cismaan Nuur Xaaji Macalimo ayaa dhankiisa ka hadlay inay dawladda dhexe ee Soomaaliya qayb weyn muhiim ah ka qaadato inay dhisto buundadan waxaan leenahay marka dawladda Soomaaliya wasaaradeeda iyo maxaa ku raada inuu qaabsan howlaha guud buundadan degmada Luuq si degdeg waxaan leenahay qabad ugu bixiyay saad arkaysaan maanta baabuurtii waxaa maraya hal fur kaliya maraya inta kale halkaas banaanka qoral ku reebaya hadda waxay qarku saaran tahay maanta baabuurta maraysa inay istaagayso waxaan leenahay marka dawladda Soomaaliya wax qabadka koowaad oo dhabta ah aan ka helnaa buundadan in ay dadka ka badbaadiso Abdul Yusuf Abi TV-ga caalamiga Somali News Luuq Ganaane